cibaadadana iskuma fiicna ayaa la yidhi ninkaa tii waxa ka markhaati kacaysa labadayda indhood waxaan ku hayay isagoo dad fooda dhulka u dhigaya meel ay kaga jirto qof bini'aadan u sujuudaya weligay ma arag mana maqal dadkii buu u sujuudayba boorame taasina waxay noqonaysaa dee mid ka baxsan xadka wasaaradda diinta oo qaftana waxaan leeyahay arrintaas iyada ah ha ka daba tagto ninkaasna ha tidhaahdo suuragal maaha mar horena somalilan ninka wax ka doonaya hadduu nin wax ka doonayo dhinaca diinta hadduu ka maro hal cod heli maayo hal qof heli maayo wuxuu sameeyey arrin xagga diinta ka baxsan oo sujuudda ilaahay oo keliya ayay u sugnaatay qof bili'aadana looma sujuudi karo fooda waxa dhulka loo dhigaa oo keliya ilaahay oo keligiya cibaadadana iskuma fiicna ayaa la yidhi ninkaa tii waxa ka markhaati kacaysa labadayda indhood waxaan ku hayay isagoo dad fooda dhulka u dhigaya waxaan odhan lahaa ilaahay ka baqo diinta ku soo noqo ninkaa odhan lahaa markaas dadkanina waa dad muslina somalilan waa dad muslina 100% waa dad aanay mugdi kaga jirin diintooda islaamka ah oo macaanna ku haysta run ahaantiina xaggaa lagama mari karo somalilan ninka wax ka doonaya hadduu nin wax ka doonayo dhinaca diinta hadduu ka maro hal cod heli maayo hal qof heli maayo waayo waan ogahay yar iyo weyn dadka somalilan diinta gaar bay ka hayaan way aaminsan yihiin way jecel yihiin diinta islaamka waa muslim 100% marka meel ay kaga jirto qof bili'aadan u sujuudaya weligay ma arag mana maqal dadkii buu u sujuudayba boorame taasina waxay noqonaysaa dee mid ka baxsan xadka waxaan u dirayaa wasaaradda diinta iyo awqaaftu arrimaha noocaas oo kale ah inaanay ka indhaqarsan ee ay ka hadlaan una sheegaan dadka waxaa jira siyaabo badan oo dadka markaad qiimaynayso bili'aadanka waa la qiimeeyaa waa la soo dhoweeyaa fadhigaa looga kacaa waxyaabo badan oo baa markaad doonayso inaad bulsho qiimayso way ka duwantay sidaa laakiin tani ilaahay quray u sugantay in fooda dhulka loo dhigo cid kale laguma labayn karo taasina waa taa mar hore uu somalilan yimina uu dhulka fooda dhigay waxa weeye ilaahay unbaa loo sujuudaa madaxweynaha waxaan leeyahay inay dastuuri tahay inay dowladda xaq u leedahay inay dhulka iibiso waan ogahay nin inala-aan ku adlaya mihi dastuurku way ku qoran tahay laakiin waxay ka badatay xadkii loogu talagalay ayay ka baxday xadkii loogu talagalay ayay iibintii danta guud ka baxday waxay maraysaa meel aan yacni meelihii muhiimka ahaa eeg waxaa jira meelo muhiima oo aan la taaban birmageyno ayuu dhulku leeyahay sida dadku birmageyda u leeyahay ayaa dhulkuna birmageyne u leeyahay meelo calaamadda dowladda aan la iibin karin baa jira madaxweyne halkaa aad ha looga fiirsado dhulka mageynada ana iibka ha laga daayo dhulka kale maaragtay aan danta muhiimka ah bulshada u hayn dhulkaas waxa weeye dee sharciga idin fasaxaya laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaduq tahay xaaduqaasina ma wanaagsana wax walba laguma xaadiqo tagrifal bay noqonaysaa markaa ku tagrifal haddaad awoodaha xukunka ku siiyo aad ugu tagrifasho waxaa meeshii ka baxaya nidaamkii dawliga ahaa